war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ee magaalada gaalkacyo ayaa looga hadlay dagaalka maanta ka qarxay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kaas oo la sheegay inuu u dhaxeeyo ciidamada dowladda federaalka iyo dad shacab ah. afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed xasan faynuus oo warbaahinta kula hadlay madaxtooyada gaalkacyo ayaa sheegay in madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf uu ka tacsiyadeynayo dhibaatada soo gaartay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ee lagu dul dagaalamayay xalay ilaa maantay, wuxuuna sheegay in dowlad goboleedka galmudug ay ka xun tahay dhacdooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado deegaanada dowlad goboleedka galmudug. afhayeenka ayaa sheegay in dowlad goboleedka galmudug aysan marnaba raalli ka noqon doonin dhibaatada dowladda federaalka Soomaaliya ay u geysanayso shacabka galmudug, wuxuuna sheegay in ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug heegan la geliyay deegaan kastoo ay joogaan. docda kale war-saxaafadeedkan ayaa beesha caalamka iyo dowladaha Turkiga iyo Mareykanka oo tababara ciidamada inta badan ka dagaalamaya magaalada dhuusamareeb baaq loogu diray. ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf wuxuu tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay ama ku dhintay dagaalkii xalay iyo saakaba ka dhacay dhuusamareeb iyo degmada Guriceel. dagaalkaasi oo ahaa dagaal ay ku lug lahaayeen ciidamada dowladda federaalka. waxaan leenahay eheladii dadkii dhintay samir iyo iimaan Allah ka siiyo, inta dhaawacana Allah u boogadhayo. marka xigta waxaan dhowr jeer ka hadalnay in ciidamadii dowladda federaalka ee loogu talagalay in ay dalka ka difaacaan cadowga gaar ahaan al-shabaab in loo adeegsanayo dadka shacabka lagu laynayo loo soo daabulay deegaanada galmudug, waana midda maantay ka dhacday iyo xalaba ka muuqatay magaalada dhuusamareeb iyo Guriceel. sida la socotaanba dad reer galmudug ah ama ciidamo galmudug oo iska soo horjeeda kuma dagaalamin dhuusamareeb iyo Guriceel. waxaa ku dagaalamay dad shacab ah iyo ciidankii dowladda federaalka ah. waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka inay joojiso, hadda ka horna waa ka hadalnay, dagaalka iyo dhibaatada ay ka wada galmudug in ay ciidamadeeda kala baxdo magaalada dhuusamareeb iyo Guriceel. sidoo kale waxaan ognahay dagaalkan in ay si gaar ugu lug leeyihiin ciidamadii loo tababaray in ay la dagaalamaan argagixisada dalka dhibaatada ku haysa. galmudug sidaa ka warqabtaan deegaano badan oo ka mid ah waxaa haysta ururka al-shabaab oo argagixisada ah. meesha hadda dowladdu dagaalka dadka shacabka kula gashayna al-shabaab waxay u jiraan 30 kilomitir. weerar laguma qaadin, laakiin waxaa la soo weeraray dadkii shacabka ahaa. khasaaraha ka dhashayna waad ogtihiin in ilaa hadda dagaal uu ka socdo magaalada dhuusamareeb. dowladaha sida gaarka u tababaray ciidanka danab iyo ciidamada kale ee booliiska ee Turkiga lagu soo tababaray waxaan ugu baaqaynaa inay ilgaara ku hayaan ciidamadii ay u tababareen, dhaqaalahana ay ku siiyeen in ay cadowga la dagaalamaan, in ay hadda dagaal uga jiraan magaalada dhuusamareeb iyo Guriceel oo ay dadkii shacabka maaragtay dhibaataynayaan. waxaan dadka shacabka reer galmudug ugu baaqaynaa in ay deegaanadooda difaacdaan. madaxweynuhu wuxuu amray ciidanka daraawiishta galmudug meel walba ay joogaanba inay difaacaan shacabkooda. waad aragtaan waxa hadda dagaalka ku jira waa ciidankii dowladda oo weerar toos ku soo qaaday dadkii shacabka ahaa laynaya. hadda ka hor wadooyinkii bay ka xireen, waad ogtihiin 65 kilomitir ayay soo lugeynayeen. arrintaas maahan arrin indhaha laga qarsan karo. sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka oo taageerada ku bixisa dowladda federaalka siisa iyo ciidamadeeda tababarta in ay ilgaara ku hayaan ama la socdaan waxa ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan ay ka sameynayaan magaalada dhuusamareeb iyo Guriceel. sidaa la socotaan maanta dagaalkii dhacay qaybihiisa hore waxaa ku jiray ciidanka nabad sugidda iyo kuwa booliiska, laakiin hadda wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in madaxda sare ee dowladda federaalka ay ciidanka milatarigana qaybta 12aad ay amar ku siiyeen in ay dagaalkaasi galaan. oo hadda daqiiqadihii ugu dambeeyay dagaalka ay si toos ugu jireen ciidanka 12aad oo saraakiishooda ugu sarreysay ay hogaaminayaan. marka waxaan ka digaynaa dhibaatada ka dhalan karta arrintaasi dadka shacabka la laynayo. waxaan sidoo kale hadda ka warhaynaa in ciidamo laga soo daabulay magaalada Muqdisho oo ciidankii dowladda qaybaheeda kala duwanaa ah ay hadda ka soo degeen garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb, isla markaasina ay dagaalkaasi la doonayay inay qayb ka noqdaan. qaarkoodna ay haddaba dagaalkaasi safka hore galeen oo dagaalka ay ku jiraan.
marka waxaan ugu baaqaynaa dawladdu inay joojiso fidnada ay galmudug ka wado ay dadka shacabka ku leynayso ay ku beegsanayso dadka birmageydada ah oo ay adeegsanayso ciidankii loogu talagalay in ay furimaha hore kula dagaalamaan ururka al-shabaab iyo kooxaha argagixisada ee dalka dhibaatada weyn ku haya aad baa u mahadsantihiin Saadaq Siciid Nuur Galmudug.